halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah Fahad Yaasiin oo ka carooday hadal ay dawladda dalka Qatar ku bahdishay madaxweyne Farmaajo oo ballanqaadyo u sameeyay xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo jeeda kadib kulan uu la qaatay ra'iisul wasaare Roble oo cambaareeyay weerarka Ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine iyo arrin halisa oo ka dhalan karta iyo shacabka dalka Ukraine oo qaaday tilaabo la yaab leh oo argagax ku riday Russia qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba waxanta wadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida TV fadlan daawada hadii ay tahay markii kuugu horeysay aadna soo booqato ama ogaana subscribe saarata YouTube-kan sidoo kale tana aad furato gambaleelka mahadsan agaasimihi horeetay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay inuu si weyn uga carooday hadal ka soo baxay dawladda dalka Qatar agaasime Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in uu si weyn uga carooday kadib markii dawladda Qatar ay u aqoonsatay inuu ahaa jaajuus u shaqayn jiray Fahad Yaasiin ayaa dhawaan xildhibaanimo ka soo qaatay magaalada Beledweyne asagoo qayb ka noqonaya baarlamaanka 11aad ee lagu doortay magaalada Beledweyne inkastoo kursigiisa la hakiyay oo wajahayo dagaal kaga imaanaya dhinaca Roble markii uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirkii arrimaha dibadda wadankaasi Qatar inay jiraan wariyaal jaajuusina u jooga qaar kamid ah dalalka Carabta dhawaana ku biiray baarlamaanada dalalkaas dadkooduna ay u aqoonsan yihiin wadani balse ka tirsan jaajuusinta Qatar ayaa arrintaasi la sheegay in Fahad Yaasiin ay si gaar ah u gubtay hadalka ayaa ku soo aaday xilli Fahad Yaasiin uu la dhacayo eedeymo kaga imaanaya qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo u aqoonsan inuu yahay nin shaarka dawladda iyo awoodda qaranka ku dhibaateeyay dad badan oo shacab ah gacantiisana ay ku maqan tahay sargaalada sare Ekraan Tahliil oo la leeyahay raq iyo ruux halka ay jaandhigtay muddo sanad ku dhow waraysi uu bixiyay ra'iisul wasaare qoreete dalka Qatar ahana wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Hamdan bin Jassim Al Thani waxa ku sheegay in dadka Soomaaliyeed ay lacag jecel yihiin ayna fuliyaan oo ay maqlaan amarada qofkii lacag siiya sidaas darteedna ay u fududaatay in jaajuus ka tirsan dawladda Qatar uu fursad u helo in uu kala diro ama dawlad ahaan uu u hago shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hadii la goobo faylka ama qaybta lacag bixinta dawladda Qatar uu ku jiro liiska shakhsigaasi jooga Soomaaliya iyo kuwa kale oo jooga dalalka Carabeed in ay lacag toos ah ka qaataan dawladda wadanka Qatar oo ay u qaabilsan yihiin dhinaca jaajuusnimada ama sirdoonka dawladda Qatar waxa ay sheegaysaa in tilaabadan ay tahay mid ay ku ogaanayso dalalka Carabeed arrimaha sirdoon ee ka jira iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin Qatar waxay inta badan warbaahinta Al Jazeera wariyaasha ka howlgala u isticmaashaa dana u gaar ah iyadoo doonaysa inay kaga hortagto wax walba oo ay sameyn karaan wadamada ay wariyaashaasi ka soo jeedaan qaarkood lacag fara badan ayay farqa ugu shubtaa si ay u kala gadaan siyaasiyiinta dalkooda iskana hor keenaan iyadoo la eegayo danaha amuuraha dibadda iyo ganacsi ee Qatar waxa ay shaaca ka qaaday arrintan iyadoo Fahad Yaasiin uu xildhibaan noqday waxaana Fahad Yaasiin eedeymaha uu wajahayo qaybka in dawladda Qatar ay malaayiin dollar gudaha Soomaaliya soo gelisay si sharci darro ah lacagihii laga soo qaaday Qatar ayaa hore waxa madaxweyne ugu noqday Farmaajo waxayna taasi sababtay in 5 sano madaxweyne Farmaajo oo maxbuus u ahaa dawladda Qatar oo iyadu iska leh lacagtii ugu soo baxay madaxweyne Farmaajo oo habeenkii xalay ahaa kulan la qaatay xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo jeeda ee dhawaan lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa u ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan sidii Somaliland dadka ka soo jeeda ay u heli lahaayeen xuquuqda ay dawladda ku leeyihiin warar kala duwan ayaynu ka helnay kulankaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada kulanka waxa soo qabanqaabiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaana la sheegay qaar kamid ah xildhibaanada ay diideen inay yimaadaan ku dhawaad 1 milyan ayaa la sheegay in Farmaajo uu ku qarash gareeyay sidii uu heli lahaa xubnaha ka tirsan gobolada waqooyi oo intooda badan Farmaajo aan heshiis iyo xiriir siyaasadeed midna la lahayn xildhibaanada badan ka soo baxay gobolada waqooyi waxa la sheegay in Farmaajo ay ka aragti duwanaayeen qaarkoodna uu Farmaajo dagaal kula galay inaysan noqon xildhibaano
tilaabadan farmaajo wuxuu qaaday sidoo uu muujin lahaa inuu wali awood ku dhaxleeyahay xildhibaanada cusub ee soo baxay isagoo maalmihii ugu dambeeyay ay dul hooganayeen dhaleecayn ku saabsan in farmaajo laga farmaroojiyo doorashooyinka oo uusan helin xildhibaano u codeeya sidaas darteedna uu tartanka iskaga harayo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulanka uu xildhibaanada la qaatay waxa la sheegay inuu kula dardaarmay inay codkooda siiyaan isla markaasna uu ogol yahay in heshiis ay la galaan farmaajo ayaa qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka u sheegay inuu diyaar u yahay inuu fuliyo damacyada ay leeyihiin mid ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi ka qayb galay ayaa dunida TV u sheegay in farmaajo uu ballanqaad u sameeyay xildhibaanada asagoo ka dalbaday inay la shaqeeyaan waxa uu yiri farmaajo waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sidii uu la shaqeyn lahaa xildhibaanada gobolada waqooyi wuxuuna sheegay inuu siin doono mudnaan gooniya oo ka bedelan xildhibaanada kale haddii codkooda siiyaan si dhameystiran farmaajo waxa uu raadinayaa in uu helo codad badan oo uu ku noqon karo madaxweyne balse taasi lama hubo iyadoo qaybo badan oo ka mid ah xildhibaanada cusub ay dhabarka u jeediyeen lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo arrimaha ololaha doorashada gaar ahaan in sawir laga soo galo xildhibaanada gobolada waqooyi ayaa dad badan ku tilmaameen inay tahay mid laga fiicnaa oo loo baahnaa in dhinaca abaaraha loo jeeyo lacagtaasi maadaama xilligan aysan munaasab ahayn in lagu bixiyo ololo aan waxba ka soo naasacadaanayn oo aysan dhaweyn doorashada madaxtinimo maadaama la aaminsan yahay in 15 bari ee loo qabtay xildhibaanada golaha shacabka qaarkood aan lagu soo gabagabay karin waxa la sheegay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu cambaariyay tilaabada ay qaaday dowladda Russia ee ay ku weerartay dhulka iyo shacabka wadanka Ukraine ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa u cadeeyay wadamada reer Yurub inuu diyaar la yahay in dowladda federaalka ay taageerto xaqa iyo in la adkeeyo wada shaqeynta u dhaxaysa wadamada Yurub iyo sidoo kale Soomaaliya safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa falanqeyn dheer iyo wada hadal ka yeeshay arrimaha la xiriira duulaanka dowladda Russia ay ku qaaday wadanka Ukraine iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhalan kara ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay qaabka dowladda wadanka Russia ay ku weerarto wadanka Ukraine dhanka kale shacabka wadanka Ukraine ayaa qaaday tilaabo la yaab leh shacabka dalka Ukraine ayaa habeenkii xalay ahaa bambooyinka gacmaha laga tuuro iyo sidoo kale qoryaha fudfudud waxay ku weerareen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Russia uura yaqiiq ayaa wada qabsaday kadib markii boqolaal shacab ah oo wata bomba gacmeedyo ay si dhow Malaysia ku tageen goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada Russia kadibna ay gaanjada uga fureen boqolaal bombooyin oo ay ku rideen taasoo sababtay in la gubo ku dhawaad 100 gaadiidka gaashaamada taangiyaal iyo sidoo kale tan halkaas ay ku laayeen inta badan askartii ciidamada Russia ee kulaalayay magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine wararkii macluumaadyada soo baxaya ayaa sheegaya in arrintan ay qoys ku ridayso madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin madaxweynayaasha Russia iyo Ukraine ayaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan xuduudka waxaana labada dhinac ka wada hadlayaan sidii xaaladda laga yeeli lahaa Vladimir Putin madaxweynaha wadanka Russia ayaa wada hadalkan soo jeediyay kadib markii uu ku guul dareystay inuu guul ka gaaro 5 maalmood oo xiriir ah oo dagaal toos ah uu ku hayay ciidamada wadanka Ukraine ayaguna iska caabinayeen warkaad ka daawanayseen dunida TV waa inta sidaas